الحمد لله. الله 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 إلهي ما أدي سواي يا ما أنت ما نكسف حد بدنا إيمان إن شاء الله الله وسوي خير الله قصير. waxaan maanta aad ugu mahad celinayaa madaxweynaheena maalintaan arkay la yiri xasan sheekh maxamed wuxuu u duulay Eritrea waa iiga dhamaatay abdi baa la yiraahdaa wiilkaygu inuu sariirta jiifay la ahayd geeriya nolol ma haynin mar labaad baan ku mahad celinayaa oo dadka maanta aniga gooni baan ka waan faraxsanahay wiilkaygu saako ila hadla wiilkaygu maanta ila hadlay ma qarinayo malaa'ig baa garbayga saaran kelmaddu yiri madaxweyne waan ku sheegay hadalkii iigu horeeyay oo yiri wuxuu yiri hooyo maanta waan faraxsanahay anoo kula jooga ila mid tahay waxaan noo yimid madaxweyne bila aadan ah wallahu sa kelmad kale ay dheen salaada casarka way dhowrantay eedyada keenka ma hanaqaan boqolkiiba boqol eedna ma hasanta asarku horta marii la ka saare haqiiqo may walay awlaadas sagaalun i koowdi madi dagaaladii burburan dagaalkii ahliga dhii iskool la waay lanka iskool aradunka aasaasay unugeedun adi wal habarti unu dhalnay leeyma adi wal habarti jaamacada adi ha ku biidi hatan inti weydiido ha aragda unugeedii adi ka seenay kiigma hiimni geega ku bilaawd unu dhalnay laakiin adi ka difaacaya eediyadaan ma hasanta khayradaan walla kooba korama ilaahay maykiin ku tuugana Soomaali ada nabadka waali galantata ka kanagati ilaahayna kii garab gali unuuna kii garab galya ilaahay kiin ku tuugan ilaahay yaa sharfa madaxweynaha wayna sharfay nabiyullaahi maxamed baa ilaahay wuxuu ku yidhi فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك نبي محمد صلى الله عليه وسلم نحريس ربي حقي كأهاتي بعد أوجر عدي بنو آدم كاس يدتك ولا تشوغي نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم حداد أهان لهيد mid jaafiyaho qallalan الحمد لله. الله 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 إلهي ما أدي سواي يا ما أنت ما نكسف حد بدنا إيمان إن شاء الله الله وسوي خير الله قصير. وينا رحمة iyo damiir dadnimo oo ilaahay qalbigiisa uu geliyey ayuu noogu jilcay noogu diirnacay 3 sano ka bacdiina uu noo suurto geliyey inaan hor fadhiisano madaxtooyada weligeena kolleyba anugu aana soo gelinna uuna soo geliyo isagoo weliba ilmaheenna intaas aan raadinayno xog inooga wada towfiiqdan allaha ku waafajiyo saddexdii aan kugu duceeyana ilaahay ha kugu aqbalo xilka aad haysidna ilaahay ha kugu ceebtiro annagoo dhanna raciyo fiican allah inaga dhigo madaxda allah inoo hagaajiyo shacabka iyo raciyadana dad madaxdooda ka dambeeya oo wixii xaqa ku raaca allah inaga dhigo.